daawadayaal barnaamijkeena maanta waxaa ku soo qaadan doonaa taariikhda hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee dalkeena Soomaaliya. Hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka dalkeena Soomaaliya ee loo yaqaan NISA waxa ay soo martay waqtiyo kala duwan. 1 Luulyo sanadkii 1960 Soomaaliya waxa ay noqotay dal madax bannaan, laakiin dawlad kasta waxa ay u baahan tahay hal shay oo muhiim ah, kaas oo ah amniga qaranka. Xilliga Soomaaliya ma aysan lahayn hay'ad sirdoon oo midaysan. Waxaa jiray oo kaliya laamo yaryar oo hoostaga booliiska dalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha, balse sirdoon rasmi ah ma uusan jirin. 21 Oktoobar sanadkii 1969 dalka waxaa ka dhacay afgembi, waxaana la wareegay taladii dalka ciidamadii militariga ee uu hogaaminayay Allaha u naxariistee Generaal Maxamed Siyaad Barre. Kadib waxaa la aasaasay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo loo bixiyay NSS. Magaca NSS waxaa laga soo gaabiyay National Security Service. Hay'adda NSS waxa ay ahayd hay'ad mug iyo miisaan ku yeelatay siyaasadda dalka, amniga iyo xaalado badan oo waddanka ka jiray. NSS ma aysan ahayn sirdoon caadi ah, waxa ay ahayd hay'ad sirdoon oo cabsi gelin jirtay shacabka, la socon jirtay qof walba. Waxay kormeeraysay siyaasiyiinta, saxaafadda, ciidamada iyo saraakiisha dawladda. Awoodda NSS waxa ay ahayd mid aan la xakameyn karin. Hay'addan waxa ay si toos ah u hoostagi jirtay taliyihii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka uu ahaa Maxamed Saleebaan Dafle. Hay'addan waxaa tababaray sirdoonkii Suufiyaadkii ee la oran jiray KGB iyo sirdoonkii bariga Jarmalka. Cadaadiskii shacabka hay'addan ay ku haysay iyo cabrintii siyaasiyiinta ayaa waxa ay keentay in dawladda dalka ay burburto sanadkii 1991. NSS waa la kala diray, dukumiintiyadiina waa la gubay, sirdoonkii qarankana waa uu burburay. Soomaaliya waxa ay gashay xilli mugdi ah, dal aan lahayn sirdoon, aan ka ahayn amni muddo 20 sano ka badan. Soomaaliya ma aysan lahayn wax sirdoon qaran ah. Waxa amniga gacanta ku hayay maleeshiyaad, qabiilo iyo dawladihii ku meel gaarka ahaa oo ay gacanta ku hayeen ciidamo shisheeye. Sirdoonka qaranka waxa uu ahaa gabi ahaanba mid baaba'san. Sanadkii 2013 Soomaaliya waxa ay isku dayday in ay dib u dhisto hay'addii sirdoonka qaranka ee loo bixiyay National Intelligence and Security Agency oo loo soo gaabiyay NISA. Hadafka waxa uu ahaa la dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyo soo celinta amniga dalka. NISA laga soo bilaabo 1960 ilaa 2024 hay'addu waxa ay ahayd mid la isku adeegto oo qofkii la rabo lagu caburiyo. Soomaaliya hadda waa nabad. Waxay ugu mahadcelinaysaa ciidankii nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed. Warbixinadan iyo kuwa kale oo ka xiiso badan waxaad maalin walba kala socon kartaan Garsoor TV. si aad noogu xirnaato mar walba ay kugu soo dhacaan. Subscribe saar janaalka, muuqaalka like saar, lana sii wadaag asxaabtaada. waad mahadsantahay.